marwooyin iyo mudanayaal halkani waa hal qoys hoyga sheeka xariirada Soomaaliyeed anino bilaabo waxa la yiri waa hore waxa jiray qoys Soomaaliyeed oo meel baadiya ah ku noolaa qoyskaasi wuxuu ka koobnaa nin iyo xaaskii iyo wiil yar oo sabiya waxay haysteen baa la yiri xoolo tiro badan oo ilaalaya xanaano xadaafa u baahan deegaanka ninku ku noolaa waxay ahayd meel colaad looga guuray oo raadadkii dagaalada wali ay ka muuqdaan walaalihii iyo in badan oo raggiisii ka mid yihiin dagaalada ayay ku dhinteen laakiin isagu wuxuu go'aansaday inuu ku nagaado dhulkii awoowayaashii inkastoo ninkaasi isla han weynaa oo uu rabay inuu dhulka laga hayaamay uu haybadii u soo celiyo haddana waxaa hortaagnaa wuxuu ahaa nin madi ah oo aan haysan wax nolosha baadiyaha ka caawiya oo garab ku siiya ilaalinta xoolihiisa tirabeelka ah markuu arkay in hawsha ahmiyigu cudud iyo ciidan u baahan tahay ayuu ku fakeray inuu xaas labaad guursado si uu waraso iyo awlaad badan u yeesho oo dhibaatada haysatana uga kaaftoomo waagii dambe ayuu guursaday gabadh qurux badan oo soo dejiyey aqal Soomaaliyan aad uga durugsanayn kiisii hore xaaskiisii markay aragtay aqalka cusub iyo gabadhan quruxda badan ee ninkeeda ku lamaan ayay masayrtay oo maryihiiba tuuli gaadhay jirkii baa damqaday oo afkii baa juuqda gabay oo ciil daraaddeed ayay jidhidhacootay oo tiri ayaan daro ayuu ninkeedii u arkay in marwadiisii miweyn tahayd masayrtay oo fahmi weyday muraadka uu ka leeyahay guurkiisa labaad isagoo raba inuu dejiyo oo wax fahansiiye ayuu yidhi waan arkaa gacalo oo weli laabtaadu waxay la rogmaysaa aragtida marwada cusub ha yeeshee laabtaadu ha ku xasisho inaan xiise weyn ku hayo waa inaad mar way fahantaa juqraafiyahaan halkan aynu joognaa waa arla colaadeed xoolaheenna iyo deegaankeenaba waxaan ku ilaashan karnaa innagoo tira ahaan intan ka badan hadalkaas karnaqsiga u muuqda gabadha dhigaheedii kuma dhicin oo iyada oo cadhaysan oo afka taagaysa ayay hore u huluulatay hoygeedii habeenkii markuu madoobaadayna wiil yar oo ay dhashay intay xambaaratay ayay reerkiiba ka guurtay oo cidahoodoon carradaba joogin oo aanbabaxday iyadoo wehel ka dhiganaysa iftiinka xiddigaha iyo elayska dayaxa ayay guuraysay oo dhex gashay kaymo jiqa jibaadka iyo jaalabuteynta xayawaanada kaymaha ku jira ka soo yeedhaya ayaa jahawareer ku riday oo meel ay joogta ayay garan weyday dhirtii ay dhex socotay ayaaba dad ula ekaaday oo jin iyo jaan waxay u kala garan weyday ayaa jiitay araggeedii markaasay tiri ma jinbaa ma jaanbaa waxaan iga hor muuqdaa mise jahawareer bay arrintaydi joogtaa jawiga noocaasa marka gabadhu ku jirtay ninkeedii habeenka hoygii minyaradu u hoyday oo warba uma hayn guuraheeda habeennimo salaadii markii waagii dilaacay ayuu xaggeedii u soo daqaqamay oo isiri aad soo bariidisid iyada iyo ilmihii yaraa markiiba wuxuu arkay gurigii oo bilaa ooda wuxuuna gartay inay xalay saqdii dhexe guuraysay markaasuu murugooday oo guurka xaaska labaad ka qoomamooday maxaa yeelay wuxuu afada iyo wiilka yarba uga baqsanaa cidla dhexe inuu bahal ku cuno xaaskii xanaaqday maseer awgeed waxay qaaday waddo khaldan oo waxay ka ambatay
aqalkii hooyadeeda ay ku socotay. waxayse maalmo iyo habeenno badan sii socotaba ugu dambayntii dooxadii nugaal godan ayay is aragtay iyadoo dhex taagan, halkaasoo ahayd meel aad u cabsi badan. waxaa caan ku ahayd dadqalatadii dhagdheer iyo kuwa kale. haweenaydii geed yucuba hoostiis bay ku yara nasatay oo wiilkiina naaska midig ku qabatay. xoogaa hadday fadhiday waxay aragtay wiilkii yaraayoo indhihiisu kor u jeedaan oo qoslaya. markaasay geedkii kor u fiirisay, mise nin dad qalahabaa fuushan oo wiilka marba wax tusaya. intay naxday bay wiilkii yaraa la boodday oo cagaha wax ka dayday. dadqalkiina geedkii buu iska soo tuuray. nasiib darro lugtuu ka jabay oo wuu hiigsan kari waayey dhallaankii yaraa iyo hooyadii dhashayba. haweenayda oo ilmaheedii yaraa dhabarka ku sidataa waxay sii ambaqaaday socodkeedii. cabbaar kadibse waxay meel durugsan ka aragtay qof soo daba ordaya oo qiiq iyo boor isku soo qarinaya. way istaagtay iyadoo hubsanaysa horarka dhankeeda u soo ordaya. markii qofkii ku soo dhowaaday saawaaba qof dumar ah oo dhaga dhaadheer leh, mindina gacanta ku sidata. markiiba waxay garatay qofka sidaa u soo gurdamayaa inay tahay dhagdheertii dhulkan looga yaacay ee dadku ka sheekayn jiray. kadibna iyada oo cunugeedii xambaarsan ayay carartay oo xawaaro sare ku socotay. dhagdheerna iyadoo aad iskugu kalsoon oo hubta haweenayda halkaas sii ordaysaa inay hilibkeeda cuni doonto ayay ka daba oroday. sidii laysu eryanayana waxaa lagu soo baxay boholaha xargagay caanka ah. hooyadii ilmaha wadatay markii ay aragtay inaysan boholaha dhanna uga baydhi karin ayay bisinka qabsatay oo tidhi bismillaahi raxmaani raxiim, oo wiilkeedii kala boodday bohoshii. dhagdheer oo ordaysa ayaa bohoshii soo dul istaagtay, wayse ka boodi kari weyday. waxay aragtay naagtii ay baacsanaysay oo bohosha dhanka kale uga tallaabtay. markaasay tidhi cakuya boholaha xargaga qof xiimaayay xidhaan, qof duulaayay dabraan. bal naagtaa badhida daya, bal bowdii caddaanta daya, bal buluqbuluqdeeda daya, bal wiilkay sidata daya. hohay boholaha xargaga nin xiimaayay xidhaan, nin duulaayay dabraan.